baahida loo qabo in gargaar loo sameeyo tiro fara badan oo dada oon awoodi karin in anfurkooda ay helaan ayaa dhururkan dhalinyarada oo si iskooda isku soo xilqaabay u istaageen waxayna anfur u sameeyeen maxaabiista ku xiran xabsiga guud ee degmada Tani Gaarisa iyo weliba dugsiyada kala duwan ee caruurta dhimirka iyo weliba kuwa dhagoolaha iyo wax lagu baro. Abubakar Maxamed Cumar waa madaxa ururka dhalinyarada ee barnaamijkani soo qaban qaabiyay waxaana kula kulmay xarunta caruurta dhimirka iyo dhagoolaha. waxaan ka qaybinaa anfurada ilaa 4 meel ayaan ka qaybinaa. meel waa hadda aan taaganahay waxaa la dhahaa Garissa School of Special School Deaf School ilmaha dhagoolaha waaye. waxaa ku xigtaa maamahani oo cuntada ilmaha ku jiraan ilmaha oykana saa u aqaantin Soomaali ilmaha la soo tuuray meesha meelaha lagu xanaaneeyo hospitalka Garissa oo ka dhignay meel permanent ah oo maalin laga bixinayo. maamahani meesha naftarkeeda iyadana maalin baa laga bixinayaa. iyo waxaan isku daynay inaan geersino hal masaajid. waxaan u malay xisaabtaas xusukeen ilaa 4 maalintii waxaan ku talagalnay ama waxaan ku heshiinay in aan anfurno ilaa 1,000 qof. Cabdinaasir Cabdiqaadir Macallim waa horjoogo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsiga dhagoolaha oo ah goobaha sida gaarka ay u xusheen dhalinyaradan in anfurka geeyaan. sidoo kale wuxuu iga waramayaa dareenkiisa ku aadan cunadan loo keeno. cuntada hadda naloo keenay waxa way tamir ay noo keeneen dhalinyarada. waxa kale noo keeneen bariis ay noo keeneen. waxa kale noo keeneen biyo noo keeneen. waa cunto aad u fiican oo nafaqo leh oo mataqaana wax weyn carruurta nafaqadoodii wax weyn carruurtu aad u farxi doonaan macnaha waxay wax ka bedelaysaa cuntadii hore caadi ay u cuni jireen ee wax weyn ay ka bedelaysaa marka way ku faraxsan yihiin aad ay u faraxsan yihiin anana ku faraxsanahay ma sha Allah inta badan dhalinyaradan ayaa xilliyada kala duwan ee xaaladaha adag lagu jiro hor joogsada kumanaan dada waxayna ka soo aruuriyeen dhaqaalo kuwaas oo u gargaaraan shacabka ku dhibaataysan gobolkani. waxaana dhalinyaradan lagu soo xasuustaa qaraxii Zobe ee magaalada Muqdisho xilligaas oo hormuud ay ka ahaayeen dhiig bixin laga sameeyay gobolkani. sidaad ogtihiin Garissa Muslim Youth Organization anfuraadka lix ma bixiso. qaraxii ka dhacay Zobe Muqdisho waad ka warhaysiin oo kiciyay muslimiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. qaraxaas anaga dhalinyarada muslimiinta Garissa 300 point oo dhiig aan ku aruurinay. waxaan ku xijinay maalintii labaad waxaan isku daynay inaan dhaxgalno magaalada 4 ward galbeed waa 4 degmo waa Garissa waa galbeed waa bari Iftiin iyo Township ayaan dhaxmarnay. waxaan isku daynay inaan aruurin lacag gaaraysa 550,000 lacagta waxaan ku wareejinay gurmad qaran. isku soo celceliyo dhalinyaradan ayaa waxay aaminsan yihiin in iskaa wax u qabso uu yahay qaabka kaliya ee kumanaan muslimiin oo ku dhibaataysan geyigani lagu badbaadin karo xilliga noocan oo kale bisha barakaysan lagu jirana ay tahay si walbo lagu garab istaagi karo dadka tabaaleysan in anfurka awoodi karin anfur noocan oo kale loo sameeyo. Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.